wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga iyo wasiir ku-xigeenka maamulka dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo xilka kula kala wareegayeen maayarka cusub ee magaaladaasi Wajaale mudane Shiine Cali Muuse iyo maayarkii hore degmadaasi Wajaale Xaashi Maxamuud Cabdi munaasabadan oo si heersare loo soo agaasimay isla markaasna lagu qabtay howlka shirarka ee Hotel Gelle ee magaaladaasi Wajaale ayaa waxa goob joog ka ahaa barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine maayarka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo sidoo kale uqaasha iyo salaadiinta degmadaasi tag Wajaale taliyayaasha ciidamada booliiska asluubta iyo waliba militariga mas'uuliyiin kale oo dhamaantoodba goob joog ka ahaa waxaana ugu horreyn halkaasi hadallo kooban ka jeediyay wasiirka wasaaradda maalgashiga caalamiga mudane Muuse Qaasim iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maamulka iyo dowladaha hoose mudane Axmed Faarax Cadare waxaana hadaladoodii kamid ahaa inaynu mahad celino iyo xaq inoogu leeyahay kuwa soo galayaan inaynu ugu ducayno xilka ballaaran ee loo dhiibay in Ilaahay ku asuro una dhibayo horta munaasabada marka la soo koobo waa mahadnaq iyo kuwa qolada baxaysa iyo duco iyo soo dhaweeyay gahay magaalada gudaheeda waxa u dhiman kii dhaxmarayay mashruuca kugu horeeyay kuwaad waa bilicda magaalada waxaan ku kaaga rajaynayaa taasi Ilaahay inuu ku fududeeyo shacabkuna iyo bacishka tahay ku taageeraan hadalka babna dheereeyo waxay ka dambeyn doonaa wasiirka sidoo kale halkaasi waxaa la kooban ka jeediyay barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine iyo maayarka magaalada Gabiley Amiin Cumar Cabdi oo soo dhaweeyay mas'uuliyiintani cusub guud ahaan horumarinta gobolka Gabiley gaarsiinta horumarka gobolada kale iyo runtii inaan ka miro dhalino ahdaafta iyo miro dhalinta waxyaalaha ay xiigsanayaan ummadda gobolka Gabiley dhammaantiin aad iyo aad baa idin salaamayo maamulkii hore ee halka ka tabi jiray Xaashi iyo asxaabtiisa ka mid yihiin waxaan leenahay qolada cusub ay timid waxaad la wareegteen xil ummadeed baad la wareegteen waxaad tihiin niman dhalinyaro meeshana degmadani maanta waxa weeye degmo ugu astaysan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmo maaragtay ku taal xuduud degmo ganacsi oo ay tahay in la ilaaliyo sidoo kale halkaasi waxa iyaguna sidoo kale hadallo soo dhaweeyna ka jeediyay uqaasha waxgaradka iyo mas'uuliyiinta degmadaasi tag Wajaale oo dhamaantoodba soo dhaweeyay maamulkan cusub maayarkii hore degmada tag Wajaale Xaashi Maxamuud Cabdi ayaa ka waramay waxqabadka uu qabsoomay waxqabadkeegii gaarka ahaa waxa koowaad u ahaa ballaarinta dhismaha xarunta dowladda hoose oo aanu ku darnay saddex xafiis iyo suuli bilaacada oo aanu dhisnay waxa laga yaabaa in bilaacada la dhisay dadku ay aad ula yaabaan waxa weeyaan meeshu waa dhoobay way isku duntaa sidaa daraaddeed waxaanu ka dhignay sabar adag oo aan ka dhicin laba maqsimo la dhisay waxaanu ka dhisnay saldhigga booliiska laba maqsim sariimadda hilibka oo dhibaato fara badan dumarku ku haysay waxa aanu ka siminaynay qayb ka mid ah qaybtii kalena sidoo kale maayarka cusub ee degmadaasi tag Wajaale Shiine Cali Muuse ayaa ballan qaaday in guud ahaanba dadweynaha reer Wajaale la shaqayn doono isla markaasina ka codsaday in loo duceeyo wadana wada shaqayn lahayd horumarka degmada waxaana waa hadii ay bidayno maskaxdeena waa Nimcaan Dheeg Ibraahim iyo Mixidiin Maxamed Daahir TV qaranka Gabiley.